أريانا كلامنا وحن واهر مغل جرا ظلمي بين دين إسلامكم استلي استجي دين إسلامكم اسم دونانو دوم وضع مريان عبد الله واحد كتكتي وداد كيس كديرو كلا دا لبضا وداد كيس كديرو كلا دا لبضا والبشارة واحد كلا ليري ظلمي كوبا دلين روح مسلمات دين نينكي وضعه دعوة يدلدليان دبناها سيمان داف صناعه وحكلا كدو غنى كل داعادا جرينه دب حقي دليل وقهل الاسم الدالية وروحا كلا ليري دانيه إذا مركي قرأتو يدوغ الله مرأيو dood markay wadaagto heshiis galisa diiwaanka oo daawad liga taa ummadii dawlad noqotay degdeg uma dileen aadanaha ruuxi diin leh Ahmed Dheero waxa kale oo la yiri diin sheegad sidoo daa'imiri dulucda dhaafsiisan dulmina lagu lifaaqo dhan kale loo dildilinayo oo duriyad wada dhalatay iyo xidid dagaashiida oo darteed culimada daahir iyo diracay loo laayo on hatta duqow iyo ilmiyo dumar ka sheexaynin dar ilaahay ma hay uga wadwaagnimo wardada duur ilaahay gili walku duuli iyo wal dililay daashka la fadhiidana dabka halgaado oo dugaasho male wargooyin waxa horay loo yiri maantana xaaladu taagan tahay Soomaaliya gidigeen burmado ka kacay goob kasto joogtaan burmado ka kacay وعندي daayada laga rabaa meesha fadhi lahayd نكي كعي وايد كعينا مالي مدرجة دائبو أما كيت كعي وأقول كعه إيران waa kacay markii fadhi loo diiday أروبها بركة إن عدوا قلاس كدعيو وما الدعاء اسكر راعطي warwarka iga dhaxgelin gobolka Hiiraan tii ka dhacday waa la yaabay wixii dadka kadeeday inaysan tabar saasa lahayn la ogaado kabtaydii iyo karintaydii maaragtaa ka dhacday hadda guusha ninkii holaha helaa la yiri kuwa nool ay soo qabteen kuwa dhintay iska daayay war waxa hore loo yiri culinta guulguulidkaaga gooyo galidkaaga ma gooyo war Hiiraan haday gilgisheen dadka kale la dul fadhiyo waxaan kula talin lahaa maanta fulow guuli ku dhaweyda war deegaanka caada kibiiro baxda hoostaga oo maalin hore ceelashiina laga dugay isgaadhsiintiina laga burburiyay dadkii ku dhaqnaay oo dhan hubkooda ay qaateen hadda kolka 80 jir saban wata markaan arkay waxa igu soo dhacay gabaygii ahaa intay goori gortahay arlada maadisaaga goorteed war ma haysan ciidankii dawladda ee haram cadiya duufaan la oran jiray haddaad xaafadaha dhexdooda ku arki jirteen xalay nimankii dheelman jiray bay ku dheelmadeen saakana waxa waagu ugu bariyay wadada u dhaxaysa balcad iyo afgooye deegaanka loo yaqaan basra beertii Allah u naxariistay madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed maxkamadda shabaab meesha ku lahaayeen iyo xafiis looga yeeri jiray dadka lacagta laga rabo dhan way burburiyeen baa la yiri waxna waa laga dilay waxna waa dileen baa la yiri kuwa noolna gacantan ku dhignay bay dhahan ciidanka dawladdu walina sooma guurino halkii bay saldhig ka dhigteen oo hadda basra waa lagu kala baxamiyaad ileedihiin haba lagu kala baxay baasidii ma laga soo qaad war meesha beesa laba geyn jirine qofkii taga waxa la dhigi jiray akoon lambarkaas ku shub lacagta dhiq markuu soo yiraana fasax baa tahay baa la dhigi jiray warnimayo badweyn baad gasheena waxaan idin kula talin lahaa fulaynimo in lala dhaygaga waa dhabcaalnimo inta badanna waa lagu dhintaa dhiiranaanshaha dhaxdhaxaad ka noqo waa intay xaaja dhabaqdaa waranuna waxaan dhihi lahay minaad dhuumatidna ajal dhigneed ku dhaafi mayse war maanya galiyoonay minshidaas kiirtiba malkamood mankama moogadeen war waxa la yiri geeri lagama baaqdo naftan oo aakhir waa bixiye waana ballan ilaa noo dhigo loo biltiriyaaye iyadana kabil raangunimo la isla buusaaye baalkii wax badan ina baduugaayay oo bilaambar iyo berinta bixiyay maalkeena gacalkay bareerow sidaad ula hesheen baaska bilaawahan aad ula dhacdeen waa u bogayaaye boqorhaydii saaciido xaq baad u birmanaysaan ar'allo maana leedii dhihin dhaxdhaxaad ka noqo inta xaaja dhabaqdaa war xaq iyo baadil dhaxdhaxaad lagama noqde xaqa loo hiliya wala ma dhaxdhaxaad noqo masaqas ay gelin lehe aruur saqiira iyo dumar waxba galabtana la leynayaaye abwaan qaliib sheekh maxamed Allah naxariistay waxa uu yiri dugaagii ku boobaya waa la dagaalaaye waxba heesu dadin oo miyuu ka dignin hele warawood la gubwar ma haysaane ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Aaro ee gadan khudbad jeediyay
wuxuu yidhi nimanka haweenka iyo carruurta iyo hantida isku gubaya qiil aan ku sii dhowranno uma hadhina aan iska qabanno qiil damba ma harin iyo diintoo lagu qaraabtaaye miyuu yidhi war shirka ra'iisul wasaaruhu ka hadlay wasaaradda haweenkaa soo abaabushay oo khadiijo maxamed diiriye hore miyay hawsha u gashay war khadiijo dawladdii hore intii ay jirtay waxay dhihi jirtay libax laba maahan markii aragtay dabeeshuna dhinac kale uu sii wareegaysana waxay tidhi daanyar laba maaha marka eega xamse shabeel laba maaha miyay ku tiri maroodiyaaba waaga dhiman warwarkaa ku soo boodinine khadiija wixii haween beledka joogay isu keentay waxayna tiri ciidanka dagaalamaya oo nabadiidka dalka ka xoraynaya garabkoodaan taaganna war gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sacdiye samatar waxay tidhi rag iyo dumar dagaalka in loo kala hara maaha war ninka gadaal usoo laqda diracya gambada ha qaata miyay tidhi wargooyin war ma haysaana dagaalkii ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida raggii geesiyaasha ah ee shabaab meel iska saaray gabdhihii xulka ahaa bay guursadeen war madaxweynaha yukrainba ninkii noo dagaalamaya lacag iyo guri iyo gabadh baan siinaynaa buu yidhi war marka xaaladdu xun tahay gabar geesiyaa geya war aniga baabkaasoo dhan waa ka bootiyeye doorashadii kenya waa lagu kala baxay mahuru kenyataa layidhi kuwaani waa murmeen adigu iska hayso war baabuurkii weynaaye rayno wardhiinka warqadaha ku raray maxkamaddu ma akhri karno miyay tidhi war guddi waraaqaha akhriya miyaa loo xil saaray war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi karee maxkamaddii go'aanay soo saartay waxayna tidhi madaxweynaha sharciga ah ee kenya waa william ruuto asagaana doorashada ku guulaystay ay tidhi nabee weli marooti waa u gashay hayehe wareedeega rayla udhiinka madaadka qaaday naw war ictiraafkii somalilan ee rayla soo siday iminka ma sidaasu ku saqiiray warwar ma haysiine doorashada kenya nabadii nololaa ku guulaysatay taageerayaasha nabadii nololna waxay dhaheen maadaama william ruuto uu abiy axmed saaxiib la yahay baraadarkeenna baraadarkiisa baraadarkeenna leh waaye aryaadaha waxaan maqli jiray hadduu yimaado saaxiibkaa asagoo la socdo saaxiibkii waa saaxiibkaa kale salaan war william ruuto doorashada kow markii la yidhaahdaa ku guulaystay madaxweynihii hore farmaajo qoraal buu ugu hambaliyeeyey madaxweyne xasanna taleefon buu kula hadlo oo uga hambaliyeeyey kadibna william ruuto oo yaabay wuxuu yidhi baa la yidhi anigu yaabay soomaaliya meeqa madaxweyney leedahay war hambalyadii lafta gareen iyo qoorqoor iyo axmed madoobe ma gaarin miyaa war ruuto war la'aana haysee hadduu laba kaliya la yaaban yahay 6 kalaaba u dhiman war maanta Raila Odinga yaa wajigiisa arkay oo xaaladiisa war ka haya ma caraysna because guuldarro doorasho aabiis ka dhaxlaa leeyid oo weligiis ma malxiis madaxweyne u ahaanaya war diingiyoonay rooti michal jeeli ana kiina la jiraan la jirnaa kiinaga jiraan ka jirnaa warwarkan ha qasinine kenya si sharci iyo cadaalad ah lagu kala baxay waxaana caddaatay garsoorkeeda inaan laga daba hadli karin war kenya garsoorkeeda lama soo magacaabo miya oo garsoorka kenya madaxweynaha iyo ninka mucaaradka miyaa u siman war xantu waxay sheegaysaa madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta oo shalay madaxtooyada ka guuray Raila Odingana la safnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee kenya haweeneyda inuu casho ku casuumay oo ay ka diiday macasharkii rooblay qaadad war kus lacagaha loo dhiibi rabay Raila Odinga in loo xukumaana laga shaqeynayay war nasiib darana ma lacag madaxweyne ku sii hayaa la diidaa war dadkaasi damiiray leeyihiin lacag waa qaadashana lagama yaqaan war dadkan damiir lahayn baa dalkooda iyo dadnimadooda iyo mustaqbalka ubadkooda iyo mas'uuliyadoodaba xaraashee lacagii qiimo ma leh war hadda doodii doorashada kenya sidaasay ku dhamaatay aryaadaha samigay cabdulla waxa uu yidhi how canaabu waa nin ceelqooda cidna kaa kaasheehayn cuules canaabu waa nin ceelqooda cidna kaa kaasheehayn cuules warwar ma haysaana kenya waa laga weyn yahay dowladda ingiriiska ra'iisul wasaare cusub ay yeelatay maanta boris johnson noo geeray war boris putin oo eedaa la yidhi war korooniyi lagu eedayahay oo xaflado qabtay la lahaay miyuu isku xasilay war innaga kuwii lacagta koroonaha cunay ayaa xildhibaana inoo noqdaye mar ra'iisul wasaare dhan baa xilka looga qaaday shir yar oo u qabtay shaqaalihiisa xilligii koroonaha war waxaasoo kale xil loogama tagee Soomaali badanaa ku nool Ingiriiska ama ku banaan baxeen oo mooshin ka keeneen war Soomaalida ha u gafinine ra'iisul wasaarihii hore Roble xilna ma doonan xafiiskana waa baneeyay warwarkan ha naga qasinine ingiriiska waxa ra'iisul wasaare loo doortay haweeney la yiraahdo Liz Truss war strestaad sheegaysaa talow Somaliland ma aqoonsanaysaa war Theresa Mayna waa ogaaye ingiriisku Theresa badana war gabooso Strusska aqoonsi raadiska
ingiriiska istarays inay idinka saari u malayn maayo. war haddii ingiriiska dumar ra'iisul wasaare ka noqday awalna boqoradu dumar ahayd aawa xuquuqdii ragga. axmedow hadda qoondadii ragga miyaad raadinaysaa? wararta waxaan idin weydiiyey hadday gabari madaxweyne noqoto ama sida ingiriiska oo kale ay ra'iisul wasaare noqoto saygeedu muxuu noqonayaa? warnamiyoonin warsigay leetafasu maamo ingiriisa war odaygii koobaad oo ummaduu noqonaya. war mudanaha koobaad leh warwar mahaysin ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid wuxuu yidhi muddo kororsiga maamul goboleedyadu wadaan waa qalad dowladda aamusnaanteeduna waa qalad kale inay ka hadli weysana kalsooniday dhuminaysaa uu yidhi. war cumar cabdirashiid waxaa kaloo yidhi maanta haddii dowladdu axmed madoobe ka aamustay berri haddii qoorqoor iyo dani muddada kororsadaan maxay sheegeen? warwar ma haysiine wasiiradii maamul goboleedyada wasiirkay eedeeyeen waa la kulma. war dadka xogogaalka waxay leeyihiin waxa dhan ay u qaylinayaan waxay ahayd lacag ka timid bangiga adduunka oo qaybtoodii laga siiyey ayay ka dhimanaatay in yaroo shaqaalo loogu tababaray. waayahay waa laydin sii hay sabra miyaa la yidhi hundhoolo gubusdhonga gorade weereena. war wasiirkii hore maaliyadda beyle oo arrinta wasiirada maamul goboleedyada wax laga weydiiyey wuxuu yidhi nimanka markii wax loo waayo madaxaan u salaaxi jirnay markii wax la helana madax salaaxa iyo waxsiintaan isugu dari jirnay marka muddadii koobneed oo uu wasiirka cusubi joogay ayay malaha madax salaaxi waayeen buu yidhi hadda inay ismaqashiiyaanna way ku qasbanaadeen baan filaya. war Soomaaliya sidan dhaqan maaha dhibaatada dalka ka dhacaysana waad u jeedaane waxa la isku qaqabsanayay iyo waxa yaalaana waa kala weyn yihiin danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya